Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramaya in xiisad u dhaxaysa ciidamada militariga Kenya iyo kuwa Itoobiya ay kagan tahay magaalada Kismaayo. Xiisadani ayaa timid kadib markii ciidamada militariga Kenya ay u diideen diyaarad militari ay lahaayeen ciidamada Itoobiya taas oo rabtay inay ku degto garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo taas oo istaag ay ku sameeyeen ciidamada militariga Kenya. Diyaaradani oo ahayd nooceedu tan militariga ayaa waxa ay ka soo duushay gudaha dalka Itoobiya iyadoo damacsanayd inay ku degto garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo balse waxaa ka hor istaagay ciidamada militariga Kenya ee ku sugan Kismaayo. Waxaa muddooyinkii dambe xiisad u dhaxaysay ciidamada ajaanibta ee ku wada sugan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose kuwaas oo ku howlgalaya magaca AMISOM ayaa waxaa soo kala dhexgalayay tuhumno aad u ballaaran. Dowladaha Itoobiya iyo Kenya ayaa galaangal siyaasadeed ku leh doorashada dhawaan la filayo inay ka qabsoonto magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda Kenya ay galaangal dhow ugu jirto sidii dad ay iyadu wadato ay ugu soo bixi lahaayeen doorashada madaxtinimada dhawaan la filayo inay ka dhacdo magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray in 3 musharax oo ku sugan magaalada Kismaayo heestana dhalashada dalkaasi Kenya ay ka mid yihiin musharaxada xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Jubbaland. Itoobiya ayaa la sheegay in musharaxiin ku sugan Kismaayo ay taageerayso taas oo iyada beddelkeedu ay tahay in ay taageerayso si ay ugu soo baxaan musharaxiinta ay doonayso inay qabtaan xilka madaxtinimada si mustaqbalka ay danaheeda ay ugu fashato dowladda Itoobiya. Doorashada Jubbaland ayaa ku loolamaya dowlado badan oo saaxiibo la ah dowladda Soomaaliya kuwaasi oo midba midka kale oo ka boos riixanayo kuwaas oo doonaya inay ayagu ay ku soo baxaan. Dowladaha la xusay ayaa waxaa ka mid ah dowladda Qatar oo galaangal dhow ku leh doorashada Jubbaland iyada oo doonaysa in ay ku soo baxaan musharaxiin ku sugan magaalada Kismaayo kuwaas oo taageero maaliyadeed iyo mid siyaasadeed ay ku bixinayso dowladda Qatar. Doorashada Jubbaland oo la filayo dhawaan inay ka qabsoonto magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa hareeyay fawdo ay wadaan wadamada diriska kuwaas oo doonaya in ay ayagu ay ku soo baxaan isla markaana dad ay wataan ay soo saari lahaayeen. Wararkii ugu dambeeyay Kismaayo ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan in weli xaaladdu ay qasan tahay isla markaana aan wax guul ah laga gaarin khilaafkii u dhaxeeyay musharaxiinta isbedel doonka mucaaradka ku sugan magaalada Kismaayo iyo guddigii doorashooyinka ee dhawaantani ku dhawaaqay in doorashada ay dhici doonto 22 bishan aan ku guda jirno. Dhinaca kale xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka in ay caqabad ay ku yihiin xanaanka iyo geedi socodka nabadda iyo doorasho hor xalaal ah oo ka dhacda magaalada Kismaayo. Xildhibaanadani oo si weyn u mucaaradsan isla markaana uga soo horjeeda nidaamka ay wax ku wadaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka. Xildhibaanada ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee dalka iyo beesha caalamka inay si dhow ay ula shaqeeyaan isla markaana ay taageeraan wax walba oo ka soo baxa doorashada Jubbaland oo la filayo dhawaan inay ka qabsoonto magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Ma jirto ifafaalo muujinaysa in ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah magaalada Kismaayo maadaama waqtigii lagu ballamay uu fowdo inagu soo hayo isla markaana aysan muuqanin ifafaalo muujinaysa inay dhici karto doorasho xor iyo xalaal ah kuwaas ay ku midaysan yihiin dhammaan musharaxiinta iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo. Dadka u dhunduleela arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay sheegayaan in midba midka kale uu ku eedeynayo inuu isaga dana gaar ah uu leeyahay balse waxaa la ogaaday in doorashada Jubbaland ay faragelin qaawan ay ku hayaan wadamada diriska kuwaasi oo u hanqal taagaya in qof ay ayagu wataan oo ku soo baxo doorashada dowlad goboleedka Jubbaland.